السلام عليكم. haddaad tahay reer ontario ka faa'iidayso lacagtaanayto apply garayso okay haddaa haysid ilmaha school age-ka ah 4 jir ilaa iyo 18 jir ama haddaa haysid special need ilmaha 4 jir ilaa iyo 21 jir waxay eligible u tahay 200 ama 250 so apply garay and sidaan u samayso okay waxaan ku tusinaya step by step ka meesha tagi lahayd haddaa rabti google-ka ka dhex raadin kartaa ansana kula samaynaysaa oo linki halkaas ka raacaysaa ama waxaa qoraysaa ontario.ca/catch-up payments okay payment to the s okay so markaa qortid wuxuu ku geynayaa linkigii oo aad ka apply gareynaysay danna sida linkiga meesha apply baa ku qoran apply ga taabanaysaa haddaa already register tahay oo lagu soo diray horay danna waa register tahay laakiin haddii aad register ahayn meesha kale tagtagaysaa confirmation waxa dhanaa samaynaysaa so ka faa'iidaysi wanaagsan ma aragtay waxa weeye lacag ku anficayso youtube-ka maanta waxaan soo dhigay videoga waxaan ku jirnaa challenge-gii $10 ahaa isbuucii waxaan ku jirnaa 42 ayaan maraynaa waxaan noogu dhiman 10 isbuuc baa noogu dhiman so meeshaasa maaragtay aan ugu sheegay walaalay waxaan dhahay because anay jibka ugu dhacday moogtahay already gabar walaashay intaan iska iloobaan u sheegin ayaa maskiinta waqti ka dhamaaday last time anay naftirkayga dad kalan ka maqlay but hadda newska ka arkay waxaan dhahay maybe inaad ka faa'iidaystaan laga yaabaa oo walaashii kale iska warqabo reer ontario ilaa ah so ka faa'iidayso apply garayso and then ministryga hadda ku tusinaya asagoo ka hadlay okay so daawasho waxaan fadlan like me follow me okay youtube kana taga insha Allah ka daawada challenge-gaas ka soo qayb qaata okay daawasho waxaan Government recognizes, and we've always believed, that parents play a critical role in the life and success of a child. And that's why I'm so pleased to announce on behalf of the Premier and government that starting today, parents across Ontario can apply for Ontario's catch-up payments. To put it simply, that means parents with school-age children up to 18 can receive $200 for every child. And while parents with school-age children with special education needs up to 21 years old will be able to receive $250. Families can apply today online for catch-up payments through ontario.ca/catch-up payments. Secure application, which takes literally a few minutes. Now, as I've mentioned, parents can apply today for this direct financial relief, and the portal will be open until March 31st of next year for direct support into parents' pockets.